ma ogtahay in diinta islaamku ay soo gaartay Soomaaliya inta aysan gaarin Madiina oo u jirta Makka 400 kiiloomitir oo kaliya ama aysan gaarin magaalada Daa'if oo u jirta Makka 64 kiiloomitir oo kaliya sanadkii shanaad ee dacwada nabiga Cali salaatu wasalaam ayaa nabigu wuxuu u adkeysan waayay dhibka lagu hayo saxaabadiisa tacdiibka iyo torturka midda isaga lagu hayo diyaar ayuu u ahaa inuu u dulqaato laakiin waxa aad u dhibtay midda lagu hayo saxaabadiisa markaasuu saxaabadiisa wuxuu u fasaxay inay u hijroodaan dhulka la yiraahdo Ardul Habasha waxa la isku oran jiray meesha hadda ay ku yaalaan wadamada Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea dhulkaas waxa xukumi jiray boqor magaciisa la yiraahdo Ashama ibn Abjar wuxuu ahaa boqor Masiixi ah oo diintii Nabi Ciise calayhi salaam ee saxda ahayd haysta oo ku dhagan boqor wuxuu ahaa caadil ah oo agtiisa cidna aanan lagu dulmiin saxaabadii ugu horeysay oo u soo hijrootay Ardul Habasha waxay ahaayeen 15 saxaabi waxa ugu horeeyay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu iyo nabiga Cali salaatu wasalaam gabadhiisa Ruqayyah bint Rasuulillah oo ahayd xaaskii Uthman ibn Affan saxaabadaas 15 qof ka kooban markii ay yimaadeen Ardul Habasha ayuu boqorkii meesha xukumayay Ashama ibn Abjar ama an-Najashi uu soo dhaweeyay una u idmay oo u fasaxay oo magan galiyay in wadankiisa si xorriyad ah ay ugu noolaadaan muddo 3 bilood ah markii ay joogeen Ardul Habasha ayay waxay maqleen nimankii gaalada ahaa ee Quraysh kulligood way soo muslimeen oo diintii ayay qaateen wuxuuna ahaa war been ah oo la faafiyay waad fahmi kartaa dad ka soo tagay guryahoodii xoolahoodii hantidoodii yimid wadan luuqadiisii culture-kiisii dhaqankiisii aysan waxba ka fahmayn waxay mar walba u xiisa qabeen wadankoodii inay dib ugu laabtaan saxaabadii warkii ahaa in Quraysh ay soo muslintay markii ay maqleen ay dib u soo laabteen oo Makka yimaadeen Makka markii ay yimaadeen ayay waxay arkeen hadalkaas soo gaaray in aysan waxba ka jirin oo Qurayshna saxaabadii wali dhibka ay ku hayso markii yimaadeen ayaa saxaabadii kale oo Makka ku hartay oo joogtay bay waxay uga warameen soo dhaweynta ay kala kulmeen boqorkii Ardul Habasha xukumayay ee Ashama ibn Abjar markaas ayaa saxaabo aad u fara badan oo tiradooda lagu qiyaasay inay gaaraysay 80 saxaabi oo uu hogaaminayo nabiga Cali salaatu wasalaam in adeerkiis Jaafar ibn Abi Talib ba waxay u hijroodeen mar labaad Ardul Habasha boqorkii Ashama ibn Abjar waa uu soo dhaweeyay mar labaad waana uu magan galiyay nimankii Quraysh ahaa mar labaadkan markii hore 15 saxaabi ay ahaayeen hadda laakiin waxa hijrootay 80 saxaabi way u adkeysan waayeen wafdi ayay sameeyeen uu hogaaminayo saxaabigii weynaa ee Amr ibn al-Aas oo markaa gaal ahaa waxay u direen boqorkii xukumayay Ardul Habasha si uu u soo celiyo saxaabadaas oo Makka dib loogu soo celiyo Amr ibn al-Aas markii uu yimid Ardul Habasha oo Najashi uu u yimid ayuu wuxuu gudoonsiiyay hadiyado badan horeyna way isku yaqaaneen oo macrifo ayaa ka dhaxaysay Najashi waa uu soo dhaweeyay Amr ibn al-Aas golihiisii ayuu fariisiyay markii ay suuraysteen ayuu wuxuu u sheegay in sababta uu u yimid ay tahay saxaabadaas wadankiisa joogta oo 80 kaanina Makka ka soo hijrooday inuu gacanta u soo geliyo si uu ugu celiyo aabayaashoodii adeeradoodii ilma adeeradood wuxuuna ku yiri nimankaasi waa niman diintoodii ka baxay oo diin aan la garanayn oo aabayaashoodii awooyaashood aysan la imaan bay la yimaadeen marka waxaan rabnaa in dadkoodii iyo ehelkoodii dib aan ugu celiyo si loo edbiyo oo diintoodii saxda ahayd loogu soo celiyo Najashi hadalkaas waa uu ka xanaaqay wuxuuna ku yiri Amr ibn al-Aas idinkoo Carab ah qof markii uu qof soo dilo oo qabiil uu soo magan galo uma dhiibtaan qofkaas qabiilkii uu qofka ka soo dilay maanta anoo intaas oo qof wadankayga ay soo magan gashay iyagoon qofna soo dilin qofna soo dhibaatayn just inay diintoodii la soo carareen kaliya baad waxaad doonaysaa inaan kuu soo gacan geliyo oo meeshii ay ka soo cararayeen aan dib ugu celiyo ma samaynayo yiri waxaas mana suurtagelayso laakiinse Amr ibn al-Aas ma uusan quusan dhinac walba ayuu ka soo maray Najashi wuxuuna isku dayay inuu ku qanciyo dadkaas inuu gacanta u soo geliyo in ehelkoodii iyo dadkoodii iyo adeeradood iyo ilma adeeradood iyo aabayaashood
ay rabaan in loo soo celiyo oo waxba aanan lagu samaynayn. Najaashi ku celcelin badan wuxuu yidhi nimanka horta iyagana hala igu yeero sababtoo ah waxaan rabaa inaan maqlo iyaguna waxa ay tabanayaan oo labadiinaba si cadaalad ah aan idin dhegeysto oo gartiina aan u qaado. saxaabadii ayaa loo yeeray 80 ahaa. Najaashi baa loo keenay. waxa uu hadlay Jacfar ibn Abi Talib. waa la weydiiyey waxa la yiri ninkan ayaa wuxuu ka yimid wadankiinni iyo magaaladiinni wuxuuna doonayaa inuu idin celiyo. maxay tahay sababta aad uga soo baxdeen wadankiinni? Jacfar ibn Abi Talib wuxuu yiri boqorow dad waxaan ahayn buu yiri jaahiliye ku sugan. dad waxaan ahayn buu yiri macsida iyo faaxishadu aad ugu badan tahay. dad waxaan ahayn buu yiri gabdhahooda iyagoo nool aasi jiray. dad waxaan ahayn buu yiri asnaam caabudi jiray oo Ilaahay u shariik yeeli jiray. markaasaa waxaa noo soo baxay buu yiri oo naloo soo diray nebi anaga naga mid ah. nebigaasoo noogu yeeraya cibaadada Allah subxaanahu wa ta'aala. nebigaas oo nafaraya qaraabo xiriirinta. nebigaas oo nafaraya sadaqada. nebigaas oo nafaraya runta ammaanada. nebigaas oo naga soo saaray mugdi oo noo soo saaray iftiin. Najaashi hadalkii Jacfar ibn Abi Talib ayuu la dhacay. Amr ibn al-Aas ayaa intuu soo booday buu wuxuu yiri boqorow waxaad weydiisaa diintan ay la yimaadeen waxa ay ka leedahay Ciise. maadaama uu Najaashi ahaa nin Masiixiya wuxuu damcay inuu xagga uu ka soo maro. Najaashi ayaa wuxuu weydiiyey Jacfar ibn Abi Talib wuxuu yiri nabigiinu muxuu ka sheegay buu yiri Ciise. Jacfar ibn Abi Talib ayaa waxa uu yiri waxa uu ka sheegay waxa Allah subxaanahu wa ta'aala quraankiisa uu ku sheegay wuxuuna ku dul akhriyay aayado kamid ah suuratu Maryam. aayadihii markii lagu dul akhriyay Najaashi iyo golihiisii wasiirada ahaaba waa ay ooyeen way la khushuuceen aayadihii lagu akhriyay. markii aayadihii uu Jacfar dhameeyay ayuu Najaashi wuxuu yiri Ilaahay baan ku dhaartay kani inuusan waxba ka duwanayn kii lagu soo dejiyay Nabi Muuse. wuxuuna qiray nabinimada Nabi Maxamed alayhi salaatu wassalaam iyo quraankuna inuu yahay hadalkii Allah subxaanahu wa ta'aala. wuxuuna ku yiri orda oo ku noolaada wadankiina ardul xabasha cid idin dhibaataynaysa ama cid idin dhiibaysa oo idinku celinaysa Makka ma jirto. meeshii ayay ku soo fashilmeen wafdigii uu hogaaminayay Amr ibn al-Aas waxayna ku soo noqdeen Makka. waqtigaas ay saxaabadu u soo hijroodeen ardul xabasha ayaa islaamku wuxuu soo gaaray Soomaaliya. xilligaas ayayna Soomaalidu diinta islaamka ay qaadatay.